بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan maanta dhex joognaa miskiidka magaciisa la yiraahdo miskiid geedguble ay gacanta ku hayeen muddada badan ganacsatada reer awdal khayr Allah siiyo ay ka mid yihiin xaaji xaamud jibriil iyo xaaji muumin jaamac ee degtar buuxane way dhameeyeen xaqiiqa ahaantii aad baynu mahadsan yihiin waxaan bariyaha dambe soo taraysa oo soo badbadatay in weerar lagu hayo mataqaanaa sheekha miskiidka tujinay iyadoo oo mataqaanaa la isku hayo sidii qaabkii xusbiyadii wadani ama kulmiye ama ucdo kale oo sheekha mataqaanaa ahlu sunnah ka bedelayo kuwa shabaab keenayna la isku hayo maadaama annagu nahay dadkii buqcadda miskiidku ka dhisan yahay lahaa ee bixiyay ay ku abtirsanayo miskiidku inta ilaahay ka sokaysa waxaan leenahay ninka soo faragelinaya maamulka miskiidka ee ku faragelinaya sheekhi awal bahayay haddii uu doonayo lacagtiisa uu la baxay uu miskiidka ku darsaday inuu kula dhex galo siyaasad iyo maamul waxaan leenahay taasi waa beenta adoo soo jeedaan riyootay kii aad doontaba ahaw saddexda nin ee gacanta ku haya kii aad doontaba ahaw waxa weeyaan dad baa miskiidka iska leh dad lacagtaada ilaahay ka dhigatayna waad ku maatanta waa lagugu ducayn oo culimadii xaqii la yaqaanay baa kuugu ducayn ee mawlidkii aabbaha iyo hooyadii la isugu soo galbiyey akhriyaysa baa kuugu ducayn haddaad xoolahaagii doonaysood maamul ku doonaysana waad qaadan dadka iska leh caydh maaha waa ummadda islaamka ee ku abtirsata ummadda nebi maxamed عليه الصلاة والسلام كل يسمى هذا واحد ترى نويني ودكي ويقعنا نيك الله الله يو صدق هذا نيك مدو كل ويستهمسه كل ويستهمسه وانا هذا الكيجا هو العيسي هو كوم مانط نول بنوحي هي يوحو قلا يوحو قدو يوحو كش غيبة بور ما يودوكته nin wax ka qarsooni kuma jiraan marka waxa idin leenahay ilmaadeer rayaal oo adeer rayaal maanta wixii ka dambeeyay ma dul qaadan karayna maran soo gala hantida beedka ilaahay aan ku darsanay ee buuxada la dhisay warqad xoolihiin doonaysaan wallahi waa idin diyaar oo billahi waa idin diyaar oo tallahi waa idin diyaar haddaad hurdadaad riyoonaysaan ka bixi weydaan ما واحد استعمل برخ عمر بقولوا استعمل عمر ما قيلون صدقني اللي إحنا إنه أنا ويا ربوتي عمر صدقني اللي إحنا أو أنا ويا ربوتي هريري النعاقة طلبين النهاي تدوال يجول الإسكابين النهاي تدقع لي حجالين النهاي ما كان قاع كلاي هاي صدقني إنه واحد وقع الله ورخي ركعت السنين كلا إلى ذو حاجة حامل شرير يعني وقع الله ونوبة كيس وهذا وشو قاره وحق برده وغليره ninkaasna waxaan aaminsanahay ma aha nin waxaan ku dhex jira ee waxaan leeyahay waa nin la doofsaday adeerna waxaan ku leeyahay xaaji xamudow hantidaada in badan baad ku soo daashay waad ku tacabtay adaa iska leh ilaahay baa laga dhigatay adeer yaan lagu doofsan diin 1996 soo baxday oo ninkii u horreeyay boorama keenay oo ahaa degtar buuxani oo la oranayay اتحاد oo lagu tababaray amud annagoo intaan leegnahay la leeg tee maanta lagu maamulay miskiidkayga miskiidkana wuxuu la xiriyaa miskiidada magaalada Boorama ku yaala miskiidada Boorama ku yaala ninna buucad u bixiya ninna u dhisaa gacantana waxa ku haya ninka buucad bixiya gacanta ku haya kan horena anaga ugu haynay maanta anaga ugu hayn doona ninkii lacagtiisa ku doonayay inuu nagu maamulo iyadoo kaasha oo isku xidhan oo reexaaji khayriye dhulka bixiyeen baan ku haynaa haddaad intaa wax dhaafisan doonaysana waxaan ku haynaa waxa doonayso oo ah in labadeena midkeen uu dhiigiisu bartaa ku daato wayna naga go'an tahay kaliya waxaad u fiirsataan alla idinku dhaariyo waxaad u fiirsataan magaalada Boorama waxa ku yaala kun miskiin way ka badan yihiin
مسكيتنا مقالة بورما إيجو البابدو باللقين هنا يدخل هرشوجان أيد حيوان خلينا هذا ويدح مرة ويقال ويحرصان مسكيت كجد قبل الآن ما تدح شغله يسوي البابدو يسوي باللقين هنا ويعيد هرشوجان بولا أين السوق اللي أين هرسني وحاوكو نقطة ما أنت نسمعها الرجال ما أنت عيوضان كوي كنا نقطة حرسان بل الله أن كل دارية فرق ولا حيوان في صدق واحد كور استوركها culimada waaweyn ee boorama aasiyaanka ah ka waraysta ama dadkii ka haray dadkii reer boorama bal ka waraysta marka adeerayaal waxa idin leeyahay miskiidku wuu dhammaystiran yahay khuraafaadka ha laga saaro anu malihi bakhaaraan ka dhiganaya malihi dhulkaan leeyahay oo anaa go'go'sanaya oo anaa farsamaysanaya malihi waxaan leeyahay miskiidkii uu ahaan jiray buu ahaanayaa mawliidkii rasuulkana sidii loo akhriyi jiray loo akhriyaa waxaan ka soo jeedaa ummadda ku abtirsata reer nabi maxamed baan ka soo jeedaa siyaasad la dhexgeliyo diinna aanu ma garanayo tan iyo xaawiye aadan meherka soo jireen carruurta ku dhaldhalay waxaa lagu soo galbinayay salliga nebiga iyo mawliidkiisa hadday bidco ahayd oo intaynuba wada garuucnahayna waxaad qaladka noogu dhasheen dee idinkaa sheegi waxaan ka hadlayaa takale ka hadlayaa waxay tahay waxa igu maqaala oo afbuuxa ragga odayaasha ee waalidka igu beegaan ee miskiinka gacanta ku haya ay afbuuxa igu sheegeen in dusha sare ee miskiidka laga dhigi doono jaamacad diinta lagu barto ay afbuuxa igu sheegeen jaamacad diinta lagu barto ama diinta lagu barto saxda ah ama diinta 69 buuxa waddanka kanta lagu bartay xaaji maxamed ibraahim cigaal allah u naxariistay oo sheegay oo yiri Itoobiya taxaadku wuxuu joogaa boorama ninka uu yahay isaga soo bixi doona maanta soo baxday buuxlo shalay waxaan dabooli jiray maanta ma daboolayo jaamacadna isma qaadato walaalkaygi wallahi isma qaadato jaamacadii ma lagu cabiday isma qaadato shalay u dambeysay waxaan isku qabsanay rubax oo bala saabka gobolka ah waqtiga waxa ka maray haasalaadiinta beelaha Soomaaliyeed oo dhan halka ka wada hadlayna markii lagu dari maayo markii lagu dariyay jagadii ay ka dhisnayd makhaayadii hudaalkii barka Umar Xaaji Khayray ay ka dhisnayd ee dhinaca galbeedka ah markii lagu darayay oo rubaaxii joojiyay markaad fargaas ka ahaay adna maanta aad leedahay jaamacad baa ka dhigi inaad adoo soo jeedaad riyootay ee waxaan ku leeyahay waan ku ducaynaya adoo hurdo buuxano riyo hadday tay naga soo dhamaatay labadeena mid ahaan oo dhiiggeenu halkan yaalana geed gubleys ku keenkeen